بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا وناكسن داودyaal dalkiin ma meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkan natiijada ciyaareedkii ku soo dhamaatay ciyaartii weyneed ee galabta dhexmartay kooxaha Muqdisho City Club in adiga hegan ciyaar qaybkeeda horyaalka Soomaaliya Premier League kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club ayaa galabta 3 gool iyo eber dusha u saarisay naadiga ciidanka booliska Soomaalida hegan ciyaar qaybkeeda horyaalka Soomaaliya Premier League kulankan ayaa mid aad u xiiso badan labada kooxood waxay soo bandhigeen kubad aad u heersareysa oo ay jecleystaan taageerayaasha u soo daawasho tagay ciyaartan weyn balse qaybtii koowaad ayaa lagu kala maray eber oo ay fursado badan isku cuneen labada dhinac markii dib isugu soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta wiilasha MCC waxay dardar xoogan ku soo galeen garoonka iyagoo rabay in shabaqada Hegan ay si sahlan ku gaaraan inkastoo daafacyada Hegan ay aad u feejignaayeen balse daqiiqada ay socotay qaybtii koowaad waxa goolka koowaad u dhaliyay kooxda MCC ciyaaryahanka hore kooxaha Jane Dekada Faisal Xasan Xaashi goolkaas oo mid aad u cajiibsan isla daqiiqad kadib Faisal ayaa goolkii labaad ka dhaliyay naadiga Hegan sidaasna ciyaartu waxay ku noqotay 2 gool eber waxa goolkii saddexaad sii raacsaday Cabdiqaadir Aadan Eeno Banteke kaas oo dhalinaya sanadkan goolkiisii afraad ee xilli ciyaareedkan 2019-20 ugu dambeyn ciyaarta ay ku soo dhamaatay 3 gool eber ay guusha ku raacday kooxda hogaamiye macallin Mysterian oo dhashay dalka Tunisia Muqdisho City-na kulankeedii labaad oo xiriir ah ayay guul ka gaaraysaa horyaalka Soomaaliya Premier League Hegan sanadkanna wuxuu tahay sanad mugdi ah tan in markii Majra loo dhiibay macallin Mahad Mekon kaas oo markaan qaab ciyaareedkii hore aanaysan haysan kooxda Hegan